السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا صاحبي على ملك الساعة جوكتان مقعي هو إنجنير عبد العزيز عبد الله عبد الرحمن. ما نقون كرتا قف إسكي وشقيستا مثلا نولش هرمرك الجارة أذو سكولين سيستم جامعة أنسو مرين. هدي سؤال شاني أوي ديسو قف إهل كاغا أما قف صاحبتين وحلقيا وإنو كده صورة قلب معها sababtoo ah schooling system-ku maanta waxa uu noqday wax waajib ah oo u baahan qof kasta oo naga mid ah inuu soo maro. Waa maxay schooling system waa nidaam waxbarasho nidaamkaasi oo ka kooban 3 heer: qayb primary ah oo asaas ah, qayb dhexe iyo qayb dugsi sare ah. qaybta primary-ga ah ee asaaska ah waxaan u qaybinay inay ka koobnaato 4 sano koowaad ilaa iyo afraad. sanad kastana cunuga loo dhigo cashiro isku mid ah, intooda badan isku mid ah, wax saas aan isdheerayn, cashiro soo laabto. qaybta dhexe aan u naqaano standardka oo dhaxda ah waxaanu qofka u dhignaa taariikh. inteeda badan waxa xoog la saaraa taariikhda oo dhexe oo dhan, taariikhda Afrika oo kaleeto, taariikhda adduunka, taariikhda carabta, dhaqamada culture-ka oo kaleeto, science-ka oo kaleeto, asaaska science-ka, qaybtii asaaska ee sida geedaha noocyadooda kala gedisan, waxyaalahaas qofka la bara. qayb waxaan u bixinay dugsi sare ama advanced aan dhahnay. qofkan waa dugsi sare. qaybta dugsiga sare waxa ugu muhiimsan 4 maado aan u bixinay scientific cilmi ayaan u bixinay oo kala ah qayb biology ah, chemistry, physics iyo xisaab. qofka waxa laga yaabaa nidaamkan waxbarashada wuxuu ka kooban yahay 4-3 ah, 12 sano. 12 sano kadib ayaan qofka waxaan u dhahaynaa cunugii dugsi sare ayaad dhameysay, waxaad doorataa takhasus ayuu dooranayaa, halkaas ayuu 4 sano kale ku jirayaa. waxay ku qaadanaysaa 16 sano cunugii inuu asaas ka soo gudbo. ma ahan qof xirfad leh, waa qof aan theory u sheegna, waa fikrada ayaan u sheegnay asaga dhan. waa qof aan fikrad ka buuxina, waa theory ayaan ka soo buuxinay. sababtoo ah waxaan u dhigaynay waxyaalo intooda badan soo laabtay oo hadda tusaale ahaan oo kale xisaabta oo kaleeto, sida koowaad ugu soo bilowd ilaa form 4 xisaab una dhiganaysaa. waa wax adiga wax yar kala gedisan. waa laga yaabaa xisaabaadka inay kala gedisan yihiin oo ay kala adag yihiin oo aysan isku mid ahayn, laakiinse noocuma waa wax hal nooc ah oo ardaygii uu boring ku dareemayo, caajis uu ku dareemayo. waxaan rabaa su'aal ka muhiimsan midaan inaan isweydiino oo ah schooling systemka xagee buu ka imaaday? yaa bilaabay? yaa asaasay schooling systemka? waxaa la dhahaa wadankii ugu horreeyay ee isticmaalo waxa waaye Jarmalka waayaa la dhahaa. sababta ugu weyn uu isticmaalana waxay ahayd markii uu soo baxayay kacaankii warshadaha, industrializationka, kacaankii warshadaha la Yurub. markii ay warshadaha ku waalneed oo mineralska iyo macaadinta iyo wax loo baahnaa, sidaas si la mid ah waxaa loo baahday manpower ayaa loo baahday, shaqaale ayaa loo baahday. shaqaalahaas oo shaqaale jaban. si loo helo shaqaalahaas dawladdii waxa ay ku qasbanaatay inay dadka ay hayso. sababtoo ah dadku intooda badan adduunka hore dadka wuxuu u badnaa reer guuraa camal ayuu ahaa. oo reer guuraa waxaan ka wadaa dadka waxay ka fogaayeen magaalooyinka, ayay ka fogaayeen oo beerahooda iyo xoolo dhaqato iyo beeraley ayay ahaayeen intooda badan dadka. si marka dadka loo keeno magaalada oo loogu haayo halkaas ay ku noolaadaan, waxaa la dhahay waxaan u baahannahay inaan wax barno, aqoon ayaan baraynaa. marka taas ayaa sababtay in dadkii xoolo dhaqatada ahaa ama beeraleyda ahaa in caruurtoodii iyo laga soo wado
inta badan haddii aragtay schooling systemku maxaa wuxuu xooga saaraa waa ciyaalka waaye. dadka ugu badan ee la dhahaa wax barta wax qabsada waxaa waaye waa caruurta waaye iyo dadka yaryar waaye intooda badan. sababtoo waqti bay hayaan 16 sano oo waxbarasho ah ayaa sugayso, laakiin qof weyn uu diidayaa oo waqtigaas aadka u dheer ma hayo. marka nidaamka waxbarashada wadanka Germany ayaa bilaabay. Yurubta kale markii ay qaadatay waxa uu gaaray Mareykanka, nin ayaa gaarsiiyey, hal nin ayaa fikradaasi la dhacay, ninkii ayaa maxay ahayd Mareykanka gaarsiiyey. markii Yurub ay damacday inay kala qaybsato Afrika oo gumeystihii, markaas ayuu soo gaaray maxay ahayd Afrika nidaamkan waxbarashada ah. caalamul islaamida kaleetana ayaga ayaa gaarsiiyey, oo inta badan caalamul islaami habka wax loo baran jiray education systemka caalamul islaami wuxuu ahaa in masaajidada wax laga barto. oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu jiday nidaam ah in masaajidka uu noqdo meel goob waxbarasho inuu noqdo, oo aqoonta noocyadeeda kala gedisan oo dhan halkii laga aqrin jiray wuxuu ahaan jiray masaajidka ayuu ahaan jiray. oo hadda culimada dhaqaatiirta ah waaweyn iyo culimada xisaabaadka ku takhasusay sida alqawaarizm oo kaleeto, ninkan aljabra xisaabtan aljabra soo saaray, raggaas oo dhan halkii ay ka soo baxeen oo ay wax ku soo barteen waxa uu ahaa waa masaajidada waay. hadda chemistry oo kaleeto waxaa la sheegaa Jaabir bin Xayaan inuu ahaa ninkii maxay ahayd cilmigaasi inta badan innovationka ama hal-abuurka ugu badan ninka keenay inuu ahaa. marka culimadaasi halkii ay ka soo baxday masaajidada ayay ahayd. marka nidaamka waxbarashadu caadiga ah schooling systemka la dhahayo inta badan maanta waa nidaam aad loogu diga waaye, oo dadka caqliinta ah waxa ay dhahaan waa nidaam xayirayo qofka caqligiisa. sababtoo ah qofkii waxaa la barayaa inuu wax xifdiyo oo kaliya, memorizing waaye, oo qofka hal abuur ma lahan, innovation ma lahan. qofka waxaa lagu kalifayaa inuu hal meel bas ka fikiro, wuxuu ka fikirayaa cashirka oo kaliya, buuggaas meel kale uguma bixi karo. taas ayaa waxay sababaysaa qofkii inuu noqdo qof maskaxdiisa ay ku xiran tahay hal meel. sababtoo ah hadda culimada horeeto oo islaamka oo kale, anaga dad islaam aan ahay, tusaaleena ugu wanaagsan waxaa waa in ayaga ka dhigno. culimadeennii heerka ka gaaray nolosha caadiga ah ayagoo yaryar ah ayay wax barteen. waxaa suuragal ah hadda imaam Shaafici oo kaleeto waxaa la dhahaa markii uu 10 sano jiray quraanka xaafid ayuu ahaa oo kor ayuu ka yaqaanaa, waa 10 sano jir. sidoo kaleetana cilmiga kaleeta axaadiistana maxay ahayd asagana waa garanay. marka cunug 10 sano jir ah oo waxaasoo dhan xifdisan cilmigaas iska leh iyo nin maxay ahaday 16 sano waxbarasho isku soo laalaabanaysa loo dhigay, isku caqli ma noqonayaan, isku fikradna ma noqonayaan. marka mawduucan ayaan rabay maanta inaan idinla wadaago, mawduucaas oo ah inaan iftiimiyo schooling systemku halkii uu ka yimid, asagoo ugu dambeyn schooling systemka noqday nidaam dhaqaale lagu suubiyo. oo haddadan waxaa suuragal ah qoyskii 5 qofood ka kooban 5taba inay dhigtaan iskuulka. waxaa suuragal ah 5taas qofood qof walba oo ka mid ah ee Soomaaliya joogo in laga qaado $10. waxaa suuragal ah cidaasi inay $50 ka baxdo. habka ay $50 u bixinayaan waalidka ayagoo isdhahayo ciyaalkiina wax baa la barayaa, ciyaalkooda wax la barayana wax kale ma aha. schooling systemku maxaa lagu bartaa? schooling systemka ka soo qaad dugsiga dhexe oo kaleeto. dugsiga dhexe waxyaalaha ugu badan ee lagu barto sayniska ka soo qaato. tusaale ahaan sayniska muxuu ka sheekeeyaa? sayniska wuxuu ka sheekeeyaa shinnida iyo maxay ahaydey ubaxyada ee soo qaado iyo maxay ahaydey geedaha noocyadooda, buuraha, waxyaalahaas uu ka sheekeeyaa dugsiga dhexe sayniskiisa inta badan dalka sidii aan ku ogaa. manhajka maanta maxay ahayd loo dhigay ciyaalkana kama fogo, oo geedaha iyo noocyadooda iyo waxyaalahaas uu ka hadlaa. sidoo kale taariikh ayuu ka hadlaa oo history yar ku dara, culture ka hadlaa, dhaqamo iyo maxay ahayd waxyaalo ka hadlaa. waxyaalahaas ayaa qofkii qoyskii tabarta yaraa ee aan awoodin quudda daruuriga
waxaa loogu qaadayaa lacag ayaa loogu qaadayaa bil kasta, lacag weliba qaali ah. marka schooling systemku wuxuu noqday nidaam lacag lagu suubiyo ayuu noqday, oo dadka iskuulada iska leh waa dadka ugu hantida badan bulshada, dadka ugu hantida badan waa oo lacag aan caadi ahayn ay ka suubiyaan. sidoo kale dowladuhuna lacag ayay ka suubisaa. marka schooling systemku waa nidaam u baahan in dadka laga wacyigeliyo oo loo sheego waxtarkiisa iyo waxtarxumadiisa. marka kheyr baan in rajeynaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.